ugu dambeyntiina ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa ra'iisul wasaaraha hadda xilka haya ku eedeeyay inuu u soo maleegay shirqool la doonayay in lagu dilo Imran Khan. ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan oo markii ugu horeysay ka hadlay weerarkii lagu dhaawacay ayaa ra'iisul wasaaraha xilka hadda haya ee Shahbaz Sharif ku eedeeyay inuu ku lug lahaa shirqool la doonayay in lagu dilo. sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Rana iyo madaxa sirdoonka dalkaasi Faisal Nahmed ayuu sheegay in ay soo maleegeen shirqoolka lagu dili rabay. Masar Khan wuxuu sheegay inuusan ka badbaadin toogashada haddii labada qof ee weerarka fuliyay ay si daran doori ah u ridi lahaayeen rasaasta. durba dowladda Pakistan ayaa iska fogeysay eedaasi ee u soo jeediyay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka inay ku lug lahayd isku day dil ee la doonayay in lagu qaarijiyo Masar Khan, waxayna ku eedeysay inuu ka dambeeyay weerarkan kaliya qof ku dhashay xaq jirnimada diimeed.